Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. beri baa waxaa jiri jiray nin lagu magacaabo Heraa da'diisu waxay ahayd 35 sano balse weligiis ma uusan guursan. Muuqiisu wuxuu ahaa mid caadi ah, waxaana kaligiis ku noolaa guri. Dadka tuulada inta badan waa ay ku qasil jireen. Maalin maalmaha ka mid ah, Heraa isagoo baaskiilkiisa ku laabanaya waxa uu dhex marayay waddo keen ah. Waxa uu arkay gabadh aad u qurux badan oo taagan waddada. Waxa ay xirneed xariir guduudan, timaheeduna waa ay dheeraayeen sidii aroosadii kale ayay u nuureysay una dhabisnayd. Quruxdeeda awgeed Heraa miyirkiisu waa uu xumaaday. Tani maxay tahay gabadhan keenta taagan saacadan? Markii uu gabadha ag marayay lama uusan hadlin oo waa uu ka xishooday. Dabadeedna waxa uu maqlay cod yar oo ka imaanaya gadaashiisa. Markaasuu yiri, "Abaayo, adiga miyaa ila hadlay?" Gabadhii ayaa ku tiraahday, "May maqashaa?" "Haa, waan ku maqlaa. Abaayo, maxaa kuu qabtaa? Sideesan ku caawin karaa?" ayuu darbadiiba ugu jawaabay. "Anigu waxaan deganahay magaalo agtiina ah. Waxaana marayay halkan, balse gaarigii ayaa iga jabay. Miyaad ii caawin kartaa?" ayay ku tiraahday. Heraa isagoo aan ka labalabayn waxa uu ku jawaabay, "Haa, waan ku caawin karaa abaayo, laakiin anigu ma ihi makaanig. Waxaan aadayaa tuulada noogu dhow si aan dad kuugu soo kaxeeyo. Ma ii geyn kartaa tuuladaada si aan uga soo helo makaanig?" ayay tiraahday gabadhii. Waxa uu si dabacsan ugu yiraahday, "Haa abaayo, waa ku geyn karaa. Soo raac baaskiilkayga." Kadibna gabadhii waxay fariistay baaskiilka dhabarkiisa. Farxaddii Heraa ayaana aad u sii siyaaday. Waxa uuna naftiisa ka dhaadhiciyay oo isdhahayay, "Heraayo, maanta gabar ayaa kula fadhida. Waxaadna jirtaa 35 sano. Weligaana maad arag gabar kula fadhiisata. Maantana waa chance aad haysato ee gabadhan u soo bandhigo guur. Una sheeg inaad tahay doob weyn oo 35 sano oo noloshiisa ka mid ah ku soo qaatay singalnimo." Gabadhii ayaa ku tiraahday Heraa, "Magacaaga ii sheeg." Heraa ayaa ugu jawaabay, "Magacaygu waa Hanjam, balse dadku si galgacal leh waxay iigu yeeraan Heraa. Miyay ogashahay inaan kugu yeero Heraa?" ayay tiraahday gabadhii. Heraa ayaa yiraahday, "Gabar yahay cod macaan ayaad leedahay. Markii aad Heraa igu yeeraysidna aad bay u qurux badan tahay." Heraa gudaha ayuu ka faraxsanaa balse muusan ogeyn maalintan inay tahay maalintiisii nolosha ugu dambeysay. Kadibna gabadhii ayaa isu beddeshay ruuxaan, laakiin Heraa kama uusan warqabin inay isu beddeshay ruuxaan. Markii ay tuuladii yimaadeen, eeyadii tuuladu waa ay qayliyeen. Heraa ayaa yiraahday, "Iska aamusa eeyayahow. Ma maanta ayaa idinku horreysa gabar aniga oo la socda. Anigu ma aqbali karo inaad gabadhan quruxda badan ku qaylisaan. Waa inaad aamustaan, haddii kale dhammaantiin magaalada ayaa inaga musaafirin doona," ayuu yiri isagoo aad u faraxsan.